shantii galabnimo ayaan Axmed Salaad kula kulannay ardaa ka horreeya dukaankiisa halkaas oo ay ugu yimaadaan rag raadiyaha kula dhageysta. qodobadaas iyo kuwa kale oo ciyaarihii ay ka mid yihiin ayaad ku maqli doontaan barnaamijkan oo waa 76 jir ku nool Baargaal oo ka tirsan gobolka Bari waxa uuna 50 sano oo cimrigiisa ka mid ah dhegta ku hayay idaacadda BBC-da oo uu weli ka dhageysto raadiyo uu gatay 43 sano ka hor. ilaa 20 jirkii BBC baan dhageysanay kuwa kan iyo kuwa horeba laakiin kuwa kan hadda midna 82 baan keenay midna 78 baan keenay kan aan hadda gacanta ku hayo aad baan u dhaqaaliyay. nooca raadiyaha Axmed Salaad waa National Panasonic wuxuuna 1978 ka gatay magaalada Riyadh ee Sacuudiga. xilliga waxa uu ka bixiyay riyaalo laakiin dhowr jeer ayuu diiday dalabyo loo soo bandhigay. dhowr jeer baa telefoonna lagula soo hadlay waxa la yiri bahalaha ku jira caagada meel kaga jira oo bahasha biyaha oo ay sheegaan inuu lacagta badan oo mercury baa ku jira yiraahdeen furfur oo bahasha nooga eeg waxaan yiri waa ka diiday waxaan yiri ma kama maarmayo ka dooni maayo idinkana ibin maayo kana dooni maayo mercury hadduu ku jiro ay igu jiraya meeshiisa ku jiray. Axmed waxa uu ii sheegay in uu haysto telefoon nooca ballaarana magaaladiisana internetku waa 4G laakiin raadiyahan uu wali dhabta ku hayo waxa jira arrimo uu ku xushay. mobilada aniga ruuxiga hadda waayada dadame mar baa la igu khasbaalay mobil gado oo waxba Facebook iyo waxba wareega oo mobilada gado oo hadda halkan uu iigaal ma dhageysto anigu waxa uu sheegayna been baan u arkaa markaan dhageysto dad mucaarad ka soo horjeeda qolba koolinaysa wax la sheegayo iyo waxa ma bajeedaasho anigu raadiyaha ka kalsoon. nusqarniga raadiyuhu u daaraa waxa uusan weli ilaawin qaar ka mid ah wararkii uu dhageystay. anigu wax badan baan ka soo joogay laakiin waxa iigu naxdin badnayd oo xoogaa aniga waagaa Soomaalidu dawladda la jecel yahay oo Soomaalidu isticmaashay anigoo magaalada joogaho guriga gudihiisa joogo oo ay 6-7 saac maalmeed 8 duhurnimo tahay BBC baan furtay maanta igu naxd madaxweynihii Soomaaliya oo la dilay baa ka dhageystay maanta igu naxd badnayd anigoo aroos oo qol guriga ku jira fadhiya baan 8 saac dhageystay maanta igu naxd badnayd. marka aad ku safarto Soomaaliya dhexdeeda oo aad waliba marayso dhulka miyiga waa hubaal in aad mar uun la kulmayso dad raadiyo dhageysanaya laakiin waxa jira xilli uu inta ka xalad badnaa sida uu waagi ay dhacday sheekadan uu iga sheekeeyay Bootaan Muuse Maxamed oo aan Baargaal kula kulmay. adeerkay wuxuu iga sheekeeyay oo Cabdullaahi Muuse la yiraahdo wuxuu xamar baa laga soo diray magaalo ka mid ah magaalooyinka Soomaaliyeed oo magaalo yar ah ayaa macallin laga dhigay diray magaalada haddaan tagay buu yiri waan tagay hal oday baa marka magaalada raadiyo ka haystay anigana raadiyo watay raadiyii haddaan watay odayga baan la digay isla guri baan degnay ka bacdi waxaan sameeyay markii anigu markii aan magaalada u baxayo galabta ay tahay ayaa raadiyayga hore u sii qaatay galabti koowaadba suuqaan la tagay masaajidka dhinaciisa la fariistay waan iska dhageystaba dadkii way u soo xoomeen warkii bay ila dhageysteen galabta masaajid sameeyay markii sidaan sameeyay odayga maalin dambe markii ii yaray wuxuu yiri inuu dhageyso magaalada aniga igu timid aniga aan hal raadiyaan haystay magaalada yar ana haysta dadka ana warrami jiray marka qalad baa sameysay wiili ma ahayn dadka inaa magaalada inta tagtid aad u warantid aad u shidid raadiyaha arinta waxaan rabaa inaad ka joogsatid waxaan sameyn jiray wiili anigu warka anigu gurigeygan ku dhageystaa ka bacdi ana masaajidka taga markaas odayaashu ii yimaadaan iyo dadka dhammaan magaalada waxay dhahaan noo waran maxaa cusub markaas aan u waramaa wiili kolba warkii waxbaan u sheegaa wiili mar baan u kala qeybiyaa wiili warkan galabta soo maqlay qaar hadda u sheegaa qaarna dib u dhigtaa wiili kuwa bidii hore ahaa ayaan hadda wali u hayaa wiili oo waxaan rabaa inaan gadaal uga sheego adigana waad qaaday wiili dadkii baa dhex geys marka arintaasi anigu aad kuma farxin buu yiri waxaan rabaa inaan ka joogsato nacam baa yiri diyaar weeye waa ka joogsaday wiili sidii baan markii dambe ugu macaamil jiray anu meesheedaan ku dhageysan jiray odaguna meeshiisu ku dhageysan jiray ka bacdina odaga un baa dadka warrami jiray. dhageysiga raadiyuhu waa mid muddo soo jiray Soomaaliya dhexdeeda laakiin waxaa ka horreeyay hab kale oo wararka la isku gaarsiin jiray waxaana Soomaalidu ku mahmaahda
war la heliyaaba tala la hel maxamed xasan dhalo baargaal